السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهد سنتهين مانتا وأربعة لحية لباتنك بشا فبراير اللبات سنة كلبات كون يشان يلباتنك رمضان كوحن في ليه اللبان مع الموضة كهرسن ونصود ويننا رمضان كمقال كانوا حربا إن ندخل وداجو وزارة أمنية جودها أمريكان كأو كل واقعي شرعية عصب وحالس كوه دتك ودن كشرع دراسة كوسو جلي يكوه هذا كذبة in ay soo galaan laga yaabo haddaba arrintaasi maxay tahay waan idin la wadaagaya sidoo kalena waxa jirta maxkamadii magaalada Minneapolis uga socotay haweeneydii madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future iyo waliba Salim Said shalay in haweeney Ethiopian oo marqaati furahaan loo soo istaajiyay ay tiri Amy Back si toos ah ay laaluush ii weydiisatay waxa jirtay sidoo kale toddobaadkii hore weer Soomaali ah oo lagu helay in uu isku dayay qof marqaati fur sameynaya inuu la hadlo garsoore ayaa amray in la soo xiro waana la soo xiray hadda xabsi ayuu ku jiraa jimcaha ayaana maxkamad uu u balansan yahay arrintaasina waan idin la wadaagaya balse marka hore aan ku bilaabo cumrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka baridda qaabka loo guto acmaasha cumrada umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 9645492847 mahadsanidin wasiirka amniga gudaha Christine Oom ayaa maalnimadii shalaxid waxay ku dhawaaqday inay dhaqan gelinayaan sharci horey u jiray isla markaana aan la dhaqan gelin jirin oo dhinaca immigration-ka kaasi oo halis ku ah dadka wadanka sharci darada ku soo galay oo hadda gudaha wadanka ku sugan iyo kuwa laga yaabo hadda kadib inay isku soo dayaan in Mareykanka ay soo galaan sharcigaasi waxa uu yahay Alien Registration Act وهراء أي أجري قفكم مركو وطن كسوغلو وحلو بهاي 30 مالمود كدهود إن أو إسكدي وانجليو ويب سايت كي USCIS تا إنتو أوغلو كدبنا مركو إسكدي وانجليو فرأيا لغا قادي دونا قفكاسي وحا أي شاكتي مركاسي إن وطن كي أو كيمد دبلوغو علينا يو مركو قفكو هدو إسكدي وانجلي وايو oo la soo qabto isla markaana waxay noqon doontaa in wadanka laga masaafuriyo fursadna uusan u heli doonin in wadanka Mareykanka uu dib ugu soo laabto laakiin qofku haddii intuu iska diiwaan geliyo la soo qabto wadankii uu ka yimid si nabad loogu celiyo mustaqbalka wadanka waa uu ku soo laaban karaa qaab sharci ah wadankana waa uu joogi karaa uu ka shaqeysan karaa wuuna ku noolaan karaa haddaba arrintaasi ayay ka dhawaajisay marka waxa ay tiri qofku haddii uu ku guul dareysto in uu iska diiwaan geliyo abkaasi macnaheedu waxay tahay in uu ku xadgudbayo sharciyada federaalka ee dhinaca immigration-ka sidaas darteed waxay noqonaysaa in qofkaasi gacanta lagu soo dhigo oo la masaafuriyo abkan waxa iska diiwaan gelin kara dadka da'doodu 14 sano amaba ay ka weyn tahay marka qofku marka uu wadanka sharci darro ku soo galo 30 maalmood gudahood waa inuu iska diiwaan geliyaa marka waxyaabaha qofkaasi sharciyada qabanaya waxa kamid ah oo wasaaradda amniga gudaha ay xaqiijisay in qofku marka uu iska diiwaan geliyo waxa wasaaradda amniga gudaha ay u soo saaraysaa waraaq cadeyn registration ah oo uu qofkaasi haddii uu 18 sano uu ka weyn yahay markasta uu wadanayo markasta uu meel kasta uu u baxayo waraaqdaas registration-ka ayuu wadanaya waa qofku haddii 18 sano uu ka weyn yahay marka qofkii diida marka inuu iska diiwaan geliyo ganaaxyada amaba uu la kulmi karo waxay tiri wuxuu la kulmi karaa in la xiro iyo sidoo kale in la ganaaxo wadankana laga masaafuriyo marka arrintaasi ayay ka dhawaajisay waxa ay sheegtay qofku haddii uu ku guul dareysto in uu iska diiwaan geliyo macnaheedu waxay tahay in sharciyadii federaalka uu ku xadgudbayo sidaas darteed waxay xaqiijisay in qofkaas xitaa loo baahan yahay address change haddii uu sameeyo inuu halkaasi ku cadeeyo marka information-kaada ayaa gelinaysaa magacaada xilliga wadanka aad soo gashay da'daada addresska aad joogaysid numberkaada marka macnaheedu waxay tahay si fudud aan kugu soo heli karnaa maadaama iska diiwaan gelisay waana ku masaafurinayna sababta marka website-kan ay u sameyso USCIS wasaaradda amniga gudaha waxay tahay waxaan doonaynaa inaan ogaano dadka wadanka sharci darada ku jooga sidaas darteed maadaama qofkaasi wadanka sharci darada uu ku soo galay uu dambiile yahay waan qabanaynaa wadankii uu ka yimid aan u celinaynaa haddii uu isdiiwaan geliyo laakiin haddii uu isdiiwaan gelin waayo macnaheedu waxay tahay
markastaba waan heleynaa waana masaafurinayna marka haddii aadan isdiiwaan gelin wadankan mar kale dib uguma soo laaban karta laakiin haddii adigoo isdiiwaan geliyey lagu qabto oo lagu masaafuriyo macnaheedu waxay tahay wadanka dib ayaad ugu soo laaban kartaa qaab sharci ah adigoo ku imaanaya marka abadiyan waa laga mamnuucaya haddii aad isdiiwaan geli waysid oo lagu qabto oo lagu masaafuriyo wasiirka amniga gudaha Christine Ohm oo arrintan ka hadlaysayna waxa ay tiri Well, we are putting in place and enforcing the Alien Registration Act, which is using every single tool that we have at our disposal to do exactly what President Trump promised the American people. The Alien Registration Act says that within 30 days of being in this country illegally, someone must register with the federal government. They will be fingerprinted. They must announce that they are here. And if they do so, they can avoid criminal charges and fines, and we will help them relocate right back to their home country. And what this does is provide them an opportunity to come back someday and to be a part of the American dream. If they don't register, they're breaking the federal law, which has always been in place. We're just going to start enforcing it to make sure that these aliens go back home. And when they want to be an American, then they can come and visit us again. But we have a website that is live now. It's at USCIS/alien registration. You can go there now. And these folks that are here in this country illegally can self-register. They can avoid the criminal charges. They can avoid the fines, and we will help them go home. And what that provides for them is a safer environment. It's safer for our communities. It saves us taxpayer dollars, and it allows them an opportunity to come back to this country and to be an American and to live the American dream, which is truly what our history is all about. So yes, Jesse, this is not a new law. I'm just announcing that I'm going to enforce our law. And we're going to use this tool to make sure that we're following our law to provide people an opportunity to go home and come back and be a part of our country's future in the right way. dhinaca kale maxkamadda magaalada Minneapolis uga socotay haweeneydii madaxda ka ahayd ururka Feeding Our Future Amy Back iyo waliba Salim Saciid oo milkiilayaasha maqaayadda Safari ka mid ahaa ayaa toddobaadkii saddexaad hadda gabagaba uu ku dhow yahay shalay waxaa maxkamadda markhaati furahaan loo soo istaajiyay haweeney Ethiopian ah oo ka mid ahayd dadkii lacagtan lagu eedeynayay haweeneydan dambigeeda waxay qirtay bishii October sanadkii 2022 waxaa la yiraahdaa Hana Maraken Minneapolis ayay ku lahayd maqaayad waxaana ay sheegtay lacag 7 milyan ka badan in ay ka soo gashay laakiin qofkii ugu horeeyay oo si cad u sheegay ayay ahayd shalay in Amy Back ay lacag laaluusha si toos ah u weydiisatay waxay igu tiri ay tir meel maqaaxiya intaan ku kulanay telefonkaada iyo saacadaada waxaad uga soo tagtaa gaariga dhexdiisa sidaas darteed waxaan ka rabaa lacag 1.5 milyan oo laaluusha waan u diiday markaas kadibna contractigayga gabi ahaanba waa la cancel ay tir maadaama lacagtaasi aan u diiday shalay ayay maxkamadda arintaasi ka hor cadeysay haweeneydan marka waxa ay sheegtay in ay caruur ilaa iyo amaba 4,000 oo cunto ah ay sheeganaysay inay bixinaysay laakiin waxba kama jirin arintaasi ay tiri sidaas darteed ayaa waxa ay sheegtay sidoo kale Cabdikariin Iille oo wadanka baxsad uga maqan Feeding Our Future na ka shaqeyn jiray lacag kickback oo $150,000 oo dollar ah ayaan siiyay ay tiri isagana sidaas ay shalay marka ku marqaatay furtay iyadoo sidoo kalena noqotay haweeneydii ugu horeysay oo si toos ah u sheegtay in Amy Back oo Feeding Our Future madaxda ka ahayd in ay lacagtaasi laaluushka ah weydiisatay oo 1.5 milyan ah marka sidoo kalena waxaa jirta in toddobaadkii hore in uu isku dayay in Cabdinaasir Maxamed Abshir oo 30 jir ah inuu la hadlo Sharmaake Jaamac oo isku dayay ama marqaati fur ahaan maxkamadda loo soo istaajin rabay arintan toddobaadkii hore ay dhacday talaadadii maxkamadda gudaheeda ayuu isku dayay yarkan Cabdinaasir inuu la hadlo Sharmaake Jaamac oo yiraahdo balna keen musqusha waan ku wada hadlaynaa Cabdinaasir Maxamed Abshirna waxa la sheegay in uu qaraabo la yahay Salim Saciid oo milkiilayaashii maqaayadda Safari ka mid ah isla markaana dadka maxkamadda saaran ku jira isaga iyo Amy Back marka garsoore ayaa waxa uu amray in la soo xiro isniintii ayaa la soo xiray haddana xabsiga Sherbrooke ayuu ku jiraa isaga waxaa la filayay in maxkamadiisa ay bilaabato bisha Agosto ee soo socota sidaas darteed xabsiga ayuu hadda ku jiraa oo waa la soo xiray sawirkan ayaa laga qaaday markii xabsiga la geeyay waxaana maalinta Jimcaha la dhageysan doonaa in damaanada lagu sii daayo iyo in uu maxkamadda ku sii ama xabsiga ku sii jiro ilaa iyo maxkamadiisa ay ka bilaabanayso Salim Saciidna waxaa lagu amray in uusan la hadli karin dadka maxkamaddu ay kula socoto sida hadda Amy Back iyo dadka eedeysanayaasha oo iyaguna maxkamad sugayaasha waxaa la yiri lama hadli kartid oo wax wada hadala
idima dhex mari karaan marka waxaa qalad ah in qof markhaati fur ahaan maxkamad ugu socdo aad isku daydo inaad ama laaluushto ama u hanjabto ama aad la hadasho oo aad wax u sheegto wax ballanqaad u samayso marka arintaasi ayaa lagu haystaa hadda yarkan cabdinaasir maxamed abshir oo la soo xiray oo garsooruhu amray waxaana sidoo kalena mid ka mid ah xeer ilaaliyaasha Joe Thompson uu sheegay in uu isku dayay in uu markhaatigaasi uu la hadlo cabdinaasir toddobaadkii la soo dhaafay sidaas darteed maxkamadda waa tii laga sheegay markaasina hadda toddobaadkan ayaa la soo xiray oo xabsiga ayuu ku jiraa jimcaha ayaana maxkamad la soo hor istaajin doonaa in damaanada lagu sii daayo iyo in kale aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkan cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo